Asalaamu calaykum. Soo dhawow daawade. Mowduuca aan barnaamijkeenan kaga hadli doono waa cirifka Koonfureed iyo cirifka Waqooyi. Dunida aan ku noolnahay ee dhulka waxay leedahay laba cirif oo kala ah, cirifka Waqooyi iyo cirifka Koonfureed. Cirifka Koonfureed waa geeska ugu shisheeya ama ugu fog ee koonfurta meeraha dhulka. Cirifka Waqooyi isaguna waa geeska ugu shisheeya ama ugu fog xagga waqooyi ee meeraha aan ku noolnahay dhulka. Cirifka Koonfur ee adduunka waxay ku taallaa koonfurta ugu hooseysa adduunka. Cirifka Waqooyi ee adduunka iyaduna waxay ku taallaa waqooyiga adduunka, waana meesha uu adduunka ku dhammaado juqraafi ahaan. Cirifka Koonfur iyo cirifka Waqooyi waa meelaha 6 bilood maalin ah, 6 biloodna habeen ah. Labadan meelood waa meesha uu adduunka ku wareegto. Meeshani waa meesha adduunka ugu nolosha adag amaba ugu daran. Qofkii ugu horeeyay ee tagayna wuxuu ahaa Ronald Amundsen, waxayna ahayd sanadii 1911.